runtii waxyaabaha aan ku farxay oo Nairobi aan kala kulmay waxaa ka mid ah nin oo jazaahu Allahu khayran dadkan la kulmay ka mid ah ayaa wuxuu ii sheegay in maqtac sawti video aan soo duubay mar aan kaga hadlayay aaya fi suurati Taaha oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku caafiyey nin oo beerka qayb ka mid ah kansar kaga dhacay doctorkan uu dhahay xalkaaga dhimasho weeye wax kale aad sugaysid ma lahan marka waxba is wareerinin dhimashadana waa xaq Ilaahay iska tala saaro tawakkal ala Allah ninkii masaajidku galay Ilaahu bariyay subxaanahu wa tacaala quraanku akhriyay quraanku yaqiinay uu ku tadabburay xaqiiqatan biniyati shifaan uu ku akhriyay soo wada markii min suurat al-baqara ka soo bilaabay ila suurat Taaha markuu marayay ayuu wuxuu akhriyay aad ugu ooyay Ilaahayna u bariyay subxaanahu wa tacaala markuu soo gaaray ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا آيديو معناها الدرمي معنوه يقاني وكعلي مرلبات وكعلي إله بري مركا ويسألونك عن الجبال هدان يرفصر آيدي ويسألونك عن الجبال قالوا وحيكو يدين دونان يا رسول الله بورهان انتي لقين دونا وما انت قيامة دي دعو إلهي ما دام أوليه تبارك وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين الله ما دام أساس أوليه ولا الله بدون دون كان وحيكو يدين دونان وحجة كاغدي دونان بورهان ووين تلقين دونا مركز الله جل جلاله جوابته سينو محمد عليه الصلاة والسلام فقل وحد كل هذا ينسفها ربي نسفها الله تبارك وتعالى اياه كلا بتين دونه اما كلا دري دونه سبحانه وتعالى آيات الإله وحكوت المامي يوم وحكوت المامي تبارك وتعالى كالعهن المنفوش سيد صوفكي او ميره لغا بخيي marka la afuufo ama dabaasha ku imaato qaabku noqonayo ayuu ku tilmaam rabbi tabaaraka wa tacaala way ka sahlan yihiin oo marka weynaantoodii culeyskooda iyo meeshay ku fadhiyaan iyo waxa aad u sahlan in Ilaahay subhanahu wa tacaala uu qarxiyo ama kala bitiyo subhanahu wa tacaala oo meeshaasi ka dhaqaajiyo marka ninkii aayadii akhriyay uu ku ooyay Ilaahu bari marka Ilaahu wuxuu dhahay buurahan oo saan u weyn oo culeyskooda intay ku jiraan dhulka waxaa la sheegaa inta oo ay muuqdaan inta hoos ay ku jiraan ka weyn oo ka ballaaran marka adaa kale buurahan xal u keenay Ilaahu bararkaano beerkayga dhinac ka qabsaday oo kansarka ah oo waa dhimanaysa Ilaahu ila caafiyo u dhahay subhanallah ninkii caafimaad baa soo galay isbedel buu dareemay doctorkii uu noqday markaas uu dhahnay yahay ibar maxaan ka baara u ninkii tahay waxa weeyaan xalkaaga waa dhimasho soo kuma dhihin dhimashadu waa xaqiiqo sabar markaas uu dhamay artay ibar baadiga baartaan marhan imersi markuu soo u baaray ninkii oo wuxuu arkay beerkiisa noqday beer cusub oo waxa weeyaan beer ilmaha yareer beerkooda oo kale u noqdayo caafimaad helay war maxaa sameysay war ninkii ma tahay nin kala tahay doctorkii isku mashquulay markii kilibkii oo aan duubay ayaa marka ninka ii sheekeynay wuxuu u diray nin joogo Uganda oo kaliya wax laga sheegay kalida ka fadhiisatay oo dhinac dhan barar ka galay oo xaalkiisa xaal ahaa ayuu u diray marka uu sheekiyo xaaladiis ka sheekiyay ayuu u diray wuxuu dhaaniyo kilibkan dhageyso kilibkii uu dhageystay ninkii Ilaahay fadligii subhanahu wa ta'ala ninkii wuxuu bilaabay inuu masaajidka galo usbuucayn oo kalaam rabbi ilaaj uu ka raadiyo maadaama Ilaahay uu dhahay tabaaraka wa ta'ala shifaa وكما قال ربي تبارك وتعالى شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة إنه إلهي أبريه والصباح دي مساجد سوء قالوا هبينكي كصبحه قرآنك إلهي وأخريه
dhowr khatmo intuu ka gaarsiin karna uu dhameeyo qur-aanka markastana ilaahay uu bariyo. marka min hadi nabi sallallahu alayhi wasallam waxaa ka mid ah markaad qur-aanka akhrinaysid ku tadabbur aad la imaanaysid haddaa aayad cadaab uu mar calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahay ka magangeli jiray cadaabkaasi. haddii aaya raxma iyo uu arkana ilaah uu weydiisan jiray jala jalaaluhu jannat alfirdows iyo raxmadaas iyo wanaagaas uu weydiisan jiray rabbi tabaaraka wa tacaala. taasina kuma imaan karto nin qur-aanka iska boobsiinayo ma dareemi karo. waa inaad ku tadabburtaa, waa inaad macaaniga qur-aanka macaansataa, dhegaysataa, markaasaad dareemi kartaa inaad aayad cadaab maraysid haddii leedahay ilaahay cadaabka naga badbaadi, haddii aayad raxmad maraysid leedahay ilaahu raxmadaasi wanaagaasina sii. almuhim ninkii marka qur-aankii uu bilaabay usbuucayn qur-aanka akhrinayay. horta ninkii bararkii iyo wuu ka degay oo farxad iyo wanaag buu dareemayay. ninkii marka ii sheekeynaya wuxuu idhahay markaa waxaan ku idhi ninka misbaarayo doctor ma u tagay oo kelidii inay wanaagsanaatay uma tagin oo dhahay doctor, laakiin ninkii wuxuu sheegay in kelida meesha ay ku aadan tahay wax laga siibay oo waxa weeyaan in wax tin oo kale ah oo dhinacaasi soo qur-aankii wado oo qur-aankii akhrinayo in dheer dhinacaasi wax in laga siibayo uu dareemay oo camaliyad ay ka socoto dee qofna aan la joogin keligiis iska fadhiyo qur-aanka akhrinayo ayuu sheegay. insha allahu tacaala camaliya rabbaaniya inay tahay oo allihii abuuray kelidoon jirin allihii bilaabay oo abuuray inuu haddana uu wanaajiyo oo sameeyo rabbi tabaaraka wa tacaala culays kuma ahaan. waayo baabuurtan iyo waxa weeyaan baabuur qurux badan arkaysa oo maasha allah si u fiican yahay, shiluu gala baabuurkii dhanaa baaba'ayo, ayaama kadib garaasha la geynaa gaarigiiyo noociisa cusub shirkadiyaa looga celiyey oo soo samaysa laleeyahay oo kana wax gaari haddii lagu dhaha aadan sadaqaynin ayaad arkaysaa. walilaahi almathalu aclaa subxaanahu wa tacaala. aniyaa abuuray allah, yaa ibilaabay allah. aladii khalaqa min almaai bashara fajcalahu nasaban wasihra wakana rabuka qadiira qaadir calaa kuli shay subxaanahu wa tacaala. waqad khalaqtuka min qablu walam taku shay'a. ooti ilaahay subxaanahu wa tacaala nabi zakariya uu ku dhahay markuu ijcal lii aaya, ilaahu aayad ii sameey oo aan ku ogaado cunug inaan dhali doono. saan ku dhali doonaa cunug waqad balagani alkibaru wamra'atii caaqir qaala kadalik allahu yafcalu ma yashaa. ilahi wuxuu rabuu sameeya subxaanahu wa tacaala. aayadii kale maxay ahayd? يعني وزكريا نادى ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. إلهي وحكست أبو ديس وناكسناتي سمية قادر على كل شيء. marka inaan la yaabno ilaahay sancigiisa, inaan ogaanin runtii ka mashquulno adduunyo iyo makhluuq wuxuu sameeyey oo quwwat rabbi wa cadamat rabbi wa kibriyaa rabbi subxaanahu wa tacaala ka mashquulno waxyaabaha dhibaatada nagu haysatay weeye. runtii aan u malaynayno in arinteena qof kale wax un ka samayn karo ama makhluuq wuxuu sameeyey inala weynaadaan, laakiin allah jala jalaaluhu oo anigoo xasan ah qabla 40 sano ama qabla 40 sano ka hor ama 39 sano ka hor inaan biyo ahaa inaan hilmaamo oo quwadan sharaftan iyo wanaagan iyo quruxdan ii sameeyay subxaanahu wa tacaala inaan ka mashquulo wax kale aan ku mashquulo waa ceeb walaaliyaal iyo iimaan dari xaqiiqatan. ilaahay iimaanka noo kobciyo subxaanahu wa tacaala. ninkii marka qur-aanku akhriyay camaliyadaas lagu sameeyay ayuu dareemay caafimaad fiican buu helay, aad buu u wanaagsanaaday. saaxiibkiisu uu la soo hadlay awal kilibkii u diray uu soo mahad celiyay. markaas wuxuu dhahay waxaan ku yiri marka ninka doctor ma u tagay hadda uu socdaa oo dhamarka aljumca alqaadima ayuu u socdaa inuu doctorka u tago soo baaro. waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala in caafimaadkiisa taam ah soo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u maleeyay وظني حسن كإلهي أملي إن الله جل جلاله وحالكيس وكفلن هاي وعلاجكيس ربي وأهي وأؤمني إن إلهي تبارك وتعالى أرهن شيغه ونيدي سي قلبي ونكسنا قرآن كو أخريني الله تبارك وتعالى أوسن سيكسين أو حويان رجدي سيني ونكسناتو يعني رجينينا بإذن الله تبارك وتعالى
وفعلا إن عافمات كتسو شيء أنا شك إيجا جرو لكن ننكي أرنتي إيه شيء تلفون كمان انقاذن لكن إن شاء الله تعالى حرجينا الله تبارك وتعالى وننكاسي أول بكلي وسنقبن كلي وسميي وكم من نيستي وناجيي إنه وناجين دون رجينينا مرك إخواني الله تبارك وتعالى واكيكو خلقي واكيكو بلاوي أذن جرين عليسكم أهن قيب كمين جركاغا حنون صدي إنه عافيه عذاب هداد لمتت كسونولين دونا صوما قف دنتي لسونولين قف قوقعي oo la isku soo celinayso sidoo ah lagu soo celin doono dadkana way imaan doonaan maalinta qiyaamaha qof nidaam sifadka lagu dhimana laakiin dhimashada waa mid asaana soo jamcin doona subhanahu wa ta'ala يوم القيامه dadka dhan soo keeni doona jalla jalaaluhu wa amma nawaluhu wa taqaddasat asmaa'uhu ninkii asoo jiis ah dhintayna ku imaan maayo maalinta qiyaamaha soo jiis ah lugtii ka go'day oo la aasay ama meel kale la geeyay وكي ربي تبارك وتعالى أسوع عليه وصاد مسترن حتى يعني قدنين المها لقدي حتى الله تبارك وتعالى نبي ونوشة إن قدنين كأسون قدنين إيمان دون مع القيامة يعني سيدي إلهي كو أبوري قف قصت لمستركي عافمات كيس لين عولي بالله إيمان دونه ولكن إن شاء الله تعالى إله هذا أساس في عن أنك مشغولين وهبين كست سماء الدنيا إيمانا له وحقف وحيويدينا مجرى ayaad ku xiran tahay oo leedahay inaad ilaahaga asaas u fiican leedahay ogow qalbigana deji ilaahayna tala saaro xalkaagi hadaad murugsan tahay hadaad waxa weeyaan dhibaataysan tahay hadaad xanuunsan tahay alayka bil qur'aanka akhri biniyati shifaan ku akhri biniyati hidayah ku akhri nawaayadka iska badso wax badan niyeyso ilaahay ku caafiyo إلهي إنها كوهانونيو إن قال فربا إلهي يكسيو إن الله مع إلهي يكسيو إن زوجة إلهي كوهانونيو إن وحويان علاس كستو كوهيو أني قرآنك أخري وبإذن الله تبارك وتعالى قرآن إلهي وكريم أيو كيمة قرآنك الله تبارك وتعالى قرآنك كريم وكتل ما سبحانه وتعالى وحبك وين ميسد بإذن الله تبارك وتعالى حالكيغو وحالكاغي يا حلق أمددن وحكو جرا إلى أن قبصنه كلام الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.